عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. بسم الله الرحمن الرحيم. درسي أنك آيات أفريد سقاشا هذه سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيي ليبلونكم الله إلهي وحيدكم بلينيا ويدكم امتحانيا بشيء شيء ومن السيد أقارع وحير أو أقارع أي إلهي يدكم امتحانيا شيء قاسي تناله وحقاريسا أيديكم كعمهنا قارية oo gacanta wad ku qaban kareysaan مثلا waa inuu wax yar yar oo carari kareynin uu yahay warimaaxukum waranka la gaaraysan hadda wadanka ku ridaan waranka gaariya laakiin gacmuhu ma gaarayaan taasina waxa weeye tawaaweyn carari kareysa ee kolka deeda waranka lagu daba tuuro waranku gaarayo in badan oo aynu soo sheegnay kolka shay ilaahay aad u sii danaynayo nidaha dheer dhawaaqa dheer ee muuminiinta yaa ayuha alladina daasu ayuu ilaahay keenaa macnaha uu keenayana waxa weeye shaygan soo socda ayuu ilaahay aad u danaynayaa in la imtixaan inuu meesha ku jiro haddaba la yabluwannakum buu ilaahay yidhi إلهي وحو يدنكو جربيا ويدنكو امتحانيا بشيء وحير ومن السيد أقارع معناها محل وجه ابتلاء وحلو قدقيا لمن كعربت وقت آخر وحي يكون ورايين وحكملها ان محانكو راي أقارسيقا يكون ورايين الشيء يكون على أنا وقارسجها كل كإلهي وكحرمه تقول هو يبتلو دبعتها ماشى كوي منيسة دبعتها كوي منيسة إلا الشيء نرشود كحدنا أيا لقى حرمه قاركي قار بالغ حر كل ماها برد بالغ حرمه كل كان يبلونكم الله إلهي وحدكم امتحانيا بشيء من السيد وحير وقاعدة بالشيء تاسي وحي كدغان تاي والله يرينيا شيغا يا الله يرينيا هذا وحي هبا يراده كل دي وحي نولشودا اها wax laga dhimay kolka ibtilay meeshii ay ku noqonaysaa iyaga
waxay ka dhigan tahay si reer banu Israa'iilkii la yiri badda ka ugaarsada ee cishada sabtida ah laga xarimay ee lagu imtixaanay cishada sabtida ah war iska cibaadaysto oo cishada sabtida iska daaya ugaarsiga ee dibadda cishadii ay ku baloobeen sidii oo kale ayaa looga xarimay shaygii ay ku noolaayeen oo ugaarsiga ahaa qaarkii baa laga xarimay haddaba bishayin wax yar bay ku tusaysaa wax yar oo ugaadha maxaa yeelay shaygan laga xarimay waxa weeye waa kolkay muxrimiin yihiin shayguna uu yahay xaramka kolka la joogo ugaadha xaramka waa sidaa iyaguna ay muxrimiin yihiin kolka haddaba waxaa loo yareynayaa bal ugaarsigii eeg wixii aan xaramka ku jirin ee ugaadha wuu bannaan yahay ninkaan muxrimka ahayn ee xalaasha ahayn isagu ama cumro ama xaj xarmanna wuu isaga bannaan yahay wuxuu doonuu samaysan karaa tii badda ugaadhii baddu way u bannaan tahay kolka bishayin mina saydi wax yar oo ugaadha waxaa loo leeyahay dee waa intaan xaramka joogta iyo ninku kolkuu muxrim yahay waa intaa uun dee kolka aad u eegtay inta loo baneeyey ninkaan muxrimka ahayn meeshuu doonuu ayuu ka berriguu ka ugaadhsan karaa مثلا ninkii ugaadhii haddaynan xaram ka joogin ay dibadda uga baxdo oy meelaheeda iska joogto waa la iska ugaadhsan karaa baddii waxeedii oo dhan ugaadheedii oo dhan way u bannaan tahay kolka sidaa loo eego bishayin wax yar way noqon kartaa dee inta lagu imtixaanay ee laga joojiyey iyo inta u bannaan kolkaad eegto dee inta u bannaan baa ka badan kolkaasaa la ajrigeed baa loo leeyahay bishayintu wax yar bay ku tusaysaa saasaa loo leeyahay haddaba shaygaasoo mina saydi ugaadha baa la yidhi mina saydi ugaadha lafdigan saydka ah ugaadhana waa la yidhaahaa ugaadhsigana waa la yidhaahaa sayd haddii la yidhaaho ugaadhsiga kolka la ugaadhsanayo sayd baa la odhan oo ugaadhsigii weeye wixii lasoo ugaadhsaday ugaadh ahaana sayd baa la odhan ama wixii yacnihii xayawaanka ah ee meelahaba iska joogay in la ugaadhsada la doonayana sayd baa la odhan maanta halkan midkoodee loo jeedaa waxaa loo jeedaa mina saydida wixii la ugaadhsanayay baa loo jeedaa ee ugaadhsigii looma jeedo maxaa yeelay waxaad garanaysaa tanaaluhudaa dambeyaa ku tusaysaa tanaaluhu ugaadha waxa gaadhaysa laydinku imtixaanayo tanaaluhu ugaadhaa waxa gaadhaysa aydiikum gacmihiinaa gaadhaya dee kolkaa shaygan gacmuhu gaadhayaan ugaadhsigii maehe waa shaygii la ugaadhsanayay baa loo jeedaa oo waa caam shaygani masalan ugaadhani waa caam tu yar yar oon ordi karaynin oo gacantaba lagu soo qabsan karayo iyo tu ordaysaa labaday isla keenaysaa labadiibuu ilaahay sheego wuxuu yihi tanaaluhu aydiikum gacmihiinaa gaadhaya waa taa yaryare aan ordi karaynin wey gacanta lagu soo qabsanayo wa rimaaxukumna waa ta ordi karaysee dabeedna waranka laga daba ridayo wey haddaba labadan unbaa la khasisay gacmihiina iyo warmaha baa la yidhi waxaa labadan loo gaar yeelay dee wax kale oo lagu tuuro oo waagaa lama haysanin waxaan fogaya iminka la ridaya iyo waxaasaan jirin kolka wixii lagu ugaadhsanayay wuxuu ahaa qaalibkiisu fallaadha iyo waxaasi wax yarbay iska ahayda waxa qaalibka lagu ugaadhsanayay wuxuu ahaa hadduu yaryar yahayna wax gacmaha lagu qabsan karo hadduu kaa ordayana wax waranka lagu ugaadhsan karo labadaas ahaa kolkaas sidaa la ajrigeed ayaa gacmaha iyo warmaha
loo gaar yeelay oo falaadhi iyo waxyaalahay kale looga tegay sida badan labadan baa ama wixii gacantu gaari karaysana gacantoon baa lagu qabsan jiray wixii ordi karayana warmaha unbaa lagu ugaarsan jiray kolkaas saa daraaddeed baa loogu khasisay labadaa muxuu ilaahay sidaa u yeelo wuu idinku imtixaanayaa ugaarsigaa wuu idinka joojiyey liyaclama allaahu buu ilaahay yidhi inuu ilaahay ogaado man yakhaafuhu ninka ka baqanaya bilgayb maqnaanshaha yacni ninka ilaahay ka baqanaya man yakhaafuhu ilaahay ninka ka baqanaya bimacnaa cadaabkiisa ninka ka baqanaya baa loo jeedaa bilgaybi isaga oo maqan oon cadaabkii arkaynin ama ilaahay ay kala maqan yihiin uun isagu arkayn ilaahay uu arkaayo kama maqnee ee ruuxu isagoon arkayn inuu ilaahay ka baqado ama cadaabkiisa uu ka baqdo ayaa ilaahay inuu ogaado doonaya haddaba sidaa yacni imtixaanka waxaa la idinku sameynayaa bal ninka raaca ee ilaahay amarkiisa iska raacee waxaa iska daaya ilaahay ka baqda iyo ninka ilaahay dantayda ma ogan yidhaahe wixiisii iska qabsada labadaasuu ilaahay inuu kala ogaado ayaa la doonayaa haddaba faman ictadaa waa taa la idiin sheegay arrintii ina imtixaanta oo la idinka xarimaye faman ictadaa ninka ku xadgudba bacda daalika caddayntaa laydiin caddeeyey ee la yidhi ugaadhu waa idinka xaaraan idinka oo muxrimiin ah ama iyadoo ay xaram ka joogto waa xaaraan waa taa laydiin ninka iska gudba arrimaha caddayntaa bacdigeed bacda daalikada waa caddayntaa bacdigeed la caddeeye la yidhi waxaase waa xaaraana iska ilaaliya la yidhi bacdigeed ninka xadgudbo isaga oo xaaraantii og haddana waxaa sameeya falahu ninkaasi wuxuu mutaystay cadaabun cadaab buu mutaystay aliimun oo aliim ah cadaab aliimu ninkaas cadaab kulul ayuu mutaystay ilan wuxuu gudbay wixii ilaahay uu sheegay uu xarimay buu intuu iska dhaafay iska wuxuu doona ka samaystay dee kolkaa ruuxa xuma sameeya waa in isagiina la dhibo jazaan wifaaqan buu qur-aanku yidhi jaza waafaqsan xumaad samaystay adigana in lagu xumeeyo weeye kolkaa falahu ninkaasi wuxuu mutaystay cadaabun aliimun cadaab kulul buu mutaystay oo siduu ku mutaystayna waa sidaa aynu soo sheegin oo fadaasi ay ku tusayso falahudaasi yacni kol hadduu xadgudba bay ka dhigan tahay sababtaa xadgudubkaasuu cadaabkaa ku mutaysta bay ka dhigan tahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam ودم على